cismaan dube wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dowladda Kenya waxaana uu sidoo kale sheegay wasiirku in diblomaasiyiinta dowladda Kenya kaga sugan Soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan leh uga baxaan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxayna u qabteen muddo 7 cisho inay kaga baxaan wasiirka oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ah بسم الله الرحمن الرحيم دولة فدرالك الصومالية يدو كدو ليس مدح بناني دي قرن ايو ضمانات قاضية حيرك ايه قينوك عالمية قدنا يسانا واجبات كده الدستوري قاية كساران الى انت مدني مدى قرن مدى يحسلوني دا دالك وحا ايقو عن سطي ان يحريرك الدبلوماسيات وشرطو دولة كينيا دولة فدرالك الصومالية وحا يوران يسار دمان دبلوماسيين تيدا كتشوغا كينيا inay dalka dib ugu soo laabtaan waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dawladda Kenya inay dalka kaga baxaan muddo 7 maalmood ah oo ka bilaabanaysa caawa oo bishu tahay 15 December 2020 shacabka Kenya dawladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha shucuubta gobolka ayna kala dhaxayso shacabka Soomaaliyeed xiriir qoto dheer oo ku dhisan daris wanaag iyo wax wada qabsi balse hoggaanka maanta ee dawladda Kenya uu ka shaqeynayo kala fogeynta labada shacab ee dan wadaagta sababta go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba joogga ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay dawladda Kenya ku haysay madax banaanida dalkeena ugu dambeyn dawladda federaalka Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa madax banaanida qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si waafaqsan dastuurka dalka shuruucda iyo xeerarka caalamiga wax gorgortanana haba yaraatee dawladdu kama gelayso xorriyadda madax banaanida iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed